filimku wuxuu ku bilaabanayaa gabar yar oo lagu magacaabo Soon taasoo gurigooda u socota xilli habeena waxayna ka gudbaysaa waddo cidla ah si lama filaana nalkii waddada ayaa wuxuu bilaabayaa inuu damdamo markaas ay dareemaysaa in qof daba socdo isla markaana waxay bilaabaysaa inay soo jeesato waxayna arkaysaa qof madow oo daba taagan taasina waxay keentay inay baqdo oo ay cararto laakiin isla markaa ay ordayso waxay ku dhacaysaa gud meesha ka qudnaa isla markaa ay godka ku dhacdana waxbaa sii jiidanaya intaa kadib markay indhaha kala qaado waxay arkaysaa iyadoo dhex jiifta qol mugdiya oo dhulka hoostiisa ah iyadoo naxsan ayay waxay bilaabaysaa inay fiiriso dhinacyada si lama filaana wiilka tiinad ku xirnaa ayaa wuxuu bilaabayaa inuu qabsado lugaheeda iyadiina naxdin awgeed waxay bilaabaysaa iyaduna inay qayliso ninkii ka dambeeyey inay godkan ku soo dhacdo waa nin maskixiyana kaasoo lagu magacaabo Joel wuxuuna u muuqdaa inuu xanaaqsan yahay si degdega ayuu wuxuu bilaabayaa inuu gabadhii ku xidho kursi gabadhii oo yaaban dhanka kalena ka argagaxsan ayaa waxay ka baryaysaa inuu sii daayo balse haba yaraatee kama ogolaanaya arrinta dhan kale gabadhan hadli karin taasoo lagu magacaabo Chongi ayaa waxay wacaysaa walaasheed Yin walaasheed oo ka soo daahday guriga shaqo markaa ay ku maqnayd wayna ka walwalaysaa inta ay ka maqan tahay maadaama aysan gabadhan hadli karin waxa kaliya ay ku fahmayso waa inay faraha wax walba ugu tilmaanto isla markaana waxay u sheegaysaa inay guriga soo xirato ilaa inta ay shaqada ka imaanayso balse gabadhii aan hadli karin kama yeelayso arrintaas waxayna go'aansanaysaa inay bannaanka u soo baxdo oo ay timaado barta ay baska ka raacdo markay gabadhii shaqadii ka soo rooxday waxay arkaysaa walaasheed oo meesha fadhida aad ayayna markaa ugu xanaaqday maadaama ay tahay xilli dambe ammaanka meeshuna uusan sugnayn intaa kadibna waxay aadayaan gurigoodii waxaan aragnaa ninkii godka qotay isagoo CCTV-ga ka daawanaya iyaga maalinta xigtay tagsiilahan oo ah Soon aabaheed wuxuu qaybinayaa waraaqo ku saabsan gabadhiisa taasoo dhowr maalmood ka maqan dadka meesha degan waxaad moodaa inaysan wax dana ka lahayn marka laga reebo ninkii gabadha yar afduubtay kaasoo halkii uu ka caawin lahaa intuu waraaqi qaado geenaya markaa dhismo uu ku leeyahay meel kadibna meesha soo suraya isla meeshan waxaa inooga muuqdaa dad badan oo lala yahay fiidkii Chongi waxay u dabaaldegaysaa dhalashada walaasheedii Yin iyadoo siinaysa markaa jukulaato dhan kale Joel oo ahaa markaa ninkii gabadha yar soo afduubtay wuxuu u dabaaldegayaa dhalashada Soon naxariis uu leeyahay hadduu dhalasho u dhigayo isagoo soo afduubtay Soon ayuu wuxuu ka codsanayaa inay demiso shumaca intaa kadib wuxuu siinayaa hurmo keega laakiin waxay kaga dhacaysaa maradeeda isla markaana waxay u sheegaysaa in aabaheed uu dhaqso heli doono arrintaas ayuu aad uga xanaaqay wuxuuna soo xasuusanayaa markuu aabaheed uu gubi jiray ninkan qoyskiisii si uga argoosto ayuu gabadhiisa u soo afduubtay wuxuuna qorsheynayaa in uu qof kasta soo afduubto waayo kuma dareemayo deganaansho hadduu kaliya soo afduubto dadkan dhibaatada u geystay maalinta xigtay Soon aabaheed wuxuu aadayaa saldhigga booliska si uu la wadaago arrinta gabadhiisa laakiin waxaa soo baxday inaysan kiiska si dhaba u qaadan waxayna u sheegayaan inuu dul qaato inta uu baaritaanku socdo markuu maqlay jawaabta ay siiyeen wuxuu bilaabayaa inuu buuq ka keeno isla markaana waxaa soo muuqday boolis kale kaasoo dejinaya isaga markuu maqlay hadallada booliska kale wuxuu arkayaa inay fursad tahay habeennimadii ayuu sharaabka iska badinayaa aad ayuuna markaa u sirqaamayaa wuxuuna eegayaa USB si lamida wuxuu daawanayaa CCTV-ga oo uu ka shakisan yahay subaxii xigtay mid ka mida booliska ayaa hurdada ka soo toosaya kadibna wuxuu raadinayaa Soon aabaheed halkii uu isaga heli lahaa wuxuu helayaa gidaar ay ku sawiran yihiin xogta gabadhiisa askarigii ayaa dareemaya inay wax xun dhici doonaan markan wuxuu ku qasban yahay inuu helo aabbaha Soon meel kale shaqaalaha korontada ayaa waxay dul imaanayaan godkii si ay u baadhaan tiir koronto kaasoo la sheegay markaas inuu jabay wuxuuna arkayaa xadhig markaa dhulka hoostiisa ku jira kaasoo ah mid uu isticmaalaya ninkan dadka soo afduubta si uu korontada ugu isticmaalo dhulka hoostiisa markuu askariga xadhigga soo raaco oo uu yimaado godka wuxuu arkayaa timo dumar kuwaasoo ka muuqda godka korkiisa isla markaana wuxuu u yeerayaa saraakiishiisii si ay u furaan godka dhan kale Joel wuxuu ka daawanayaa CCTV-ga mid ka mid ah askarta ayaa wuxuu bilaabayaa inuu godka galo kadib markuu gudaha u soo galay wuxuu bilaabayaa inuu tallaabo qaado balse Joel ayaa isla markaana weeraraya kadibna ku qabanaya xadhig siliga wuxuuna wejiga kaga daboolayaa caag si uusan u neefsan habeennimadii Joel bannaanka ayuu soo baxay si uu helo qof kale markaas uu godka ku afduubto sikadiisa wuxuu helayaa gabadh iyo saaxiibkeed oo wada murmaya marka ninku baxo isla markiiba wuxuu afduubanayaa gabadhii dhan kale Chong waxay ka baxaysaa guriga xilli dambe si ay ula kulanto walaasheed oo shaqada ka imaanaysa waxayna imaanaysaa meel ku dhow godkii markaa dadka lagu afduuban jiray waxayna fariin u diraysaa walaasheed aabbaha dhalay Soon ayaa wuxuu ka daawanayaa muraayadda gaariga isla markaana wuxuu u malaynayaa inay gabadhiisii tahay wuxuuna bilaabayaa inuu gaariga ku soo eriyado si kastaba aatee wuxuu ku dhawaanayaa inuu ku dhufto gabadhii gaariga balse iyadu maaha mid isaga xaggiisa u soo jeesanaysa waxayna baadhanaysaa shukulaato markaa ka dhacday sikadiisa waxay arkaysaa Joel oo gabadh ku sii jiidanaya xagga godka isla markaana waxaa soo wacaysa walaasheed waxayna ogaatay inuu jiro qof daawanaya iyadoo iska indhatiraysa wicitaankii walaasheed
kadibna ay goobtii ka cararaysaa. Arrintaa awgeed walaasheed ayaa u cabsatay wayna wacaysaa mar labaad iyadoo video call ku soo wacaysa. markay video call ka qabato waxay arkaysaa kamarada moobilka oo aan fadhiyin calaashaan sidii qof la baacsanayo kale. walaasheed ayaa ogaanaysaa inay wax khaldan yihiin isla markiina waxay hore ka wacaysaa booliska balse boolisku wuu iska indhatirayaa oo telefoonkii lagama qabanayo. Son aabaheed wuxuu weli sii raadinayaa Chong wuxuuna ogaanayaa inuu jiro nin kale oo iyada raadsanaya. gabadhii yarayd ayaa meel isku qarisay kadibna ay qabanaysaa wicitaankii walaasheed. markay saa u qabato si lama filaana Chul ayaa soo muuqday kadibna qabanaya iyadii. dhan kale walaasheed way ogaatay inay wax khaldan yihiin isla markiiba waxay isticmaalaysaa GPS si ay la socoto goobta ay joogto. isla markiiba waxay imaanaysaa goobtii kadib waxay u istaagaysaa guri oo ay wacaysaa markaa walaasheed. laakiin dhawaaqa telefoonka walaasheed ayaa laga maqlayaa godka gudihiisa. Chul ayaa wuxuu maqlayaa dhaqdhaqaaqa godka korkiisa. godka korkiisa waxaa jooga Yin iyo sidoo kale Son aabaheed wuxuuna raadinayaa barta godka uu ku yaalo ilaa ay ka ogaadeen god weyn oo ay ka buuxaan meydad tiro badan. intaa kadib si degdega ay u raadsanayaa biliis. dhan kale godka hoostiisa Chong ayaa toostay kadibna waxay arkaysaa wiil isku dayaya inuu qaato chokolaatadeeda wuxuuna muuqdaa inuu aad u gaajaysan yahay. isla markiiba Chol ayaa soo baxay kadibna uu garaacaya dhammaantood ilaa ay gabadhii ka miyir beeshay wuxuuna ku xidhayaa xadhig. markuu hurdo waxay isku dayaysaa inay cararto. dhan kale ciidamada ayaa soo gaaray godka korkiisa waxayna maqlayaan gudaha gabar markaa ka qaylinaysa oo weydiisanaysa markaa gargaar. intaa kadib boolisku waxay soo badbaadiyeen gabadhii isla markiina waxay galeen godka gudihiisa. mid ka mid ah gabdhaha la soo afduubtay ayaa aad u qaylinaysa waxaana qabtay Chol oo toogtay iyada. intaa kadib meydkeedii ayuu ku tuurayaa meel meydad tiro badan ay yaalaan. Yon walaasheed ayaa waxay helaysaa wadda ay ka baxdo laakiin gabadhii yarayd waxaa mar kale qabanaya Chul. Chong oo ah markaa Yi walaasheed waxay garaacaysaa guri kasta si ay u hesho wax caawiya laakiin ma jiro hal qof oo iyada u soo baxay. ugu dambeyntiina waxay go'aansanaysaa inay godka gasho si ay walaasheed u badbaadiso laakiin nasiib darro iyadana waxaa qabtay Chul. taas kadib Yin iyo Chong waxay isku dayayaan inay baxsadaan balse Chul ayaa raadinaya kadibna soo helaya iyagii. mar kale Chong ayaa isku dayaysa inay baxsato laakiin wuxuu dirayaa wiilkii si uu u soo qabto iyada. dhan kale Yin markan ma awoodo inay baxsato maadaama uu lugteeda hayo. hadda aad ayuu xanaaqsan yahay wuxuuna damacsan yahay inuu dilo balse taasi way ka fashilmatay. mid ka mid ah gabdhaha ay waxay qabanaysaa koronto kadibna ku dhaqaajinaysa xaggiisa. intaa kadib way cararaysaa si ay u raadsato walaasheed isla markaana waxaa helaya wiilkii dhallinyarada ahaa meeshuu ka qaban lahaa wuxuu ku caawinayaa inay baxsadaan balse ma baxsan karaan maadaama ay adag tahay godkan sida looga baxo. dhan kale Son aabaheed wuxuu u sii socdaa godka wuxuuna imaanayaa qolka Chul kadibna uu arkayaa meyd soo laalaada oo ay ku xiran yihiin baca markaa tiro badan. markuu meydkii bacaha ka furfuro wuu ooyayaa sababtoo ah waa gabadhiisii oo mar hore ninkani dilay. odaygiina aad ayuu markaa u xanaaqay wuxuuna burburinayaa alaabtii guriga. si lama filaana wuxuu CCTV-ga ka arkayaa Chul isla markiina wuu eryanayaa. markuu helo wuxuu bilaabayaa inuu weeraro isla markiina dhulka ayuu ku jiiday waxaana labadoodii dhex maray dagaal. isla markaana waxaa dhacay qarax weyn kaasoo sababay in godka uu ka furmo jihada kale. arrintaas ka caawisay sarkaalku inuu baxsado. arrintaas awgeed labadii gabdhood ee walaalaha ahaa waxay ku dhawaadeen inay baxsadaan laakiin nasiib darro waa la qabtay. markan Chul aad ayuu markaa u xanaaqsan yahay wuxuuna doonayaa inuu dilo labada gabdhood laakiin Yin si degdega ay u shidaysaa kabriid oo ay markaa isaga u dhawaanaysaa. jidhkiisa wuxuu leeyahay kiimiko oo ay hore markaa gabdhahani ugu shubeen isla markaana ninkii ololkii ayaa qabsaday. awoodda dabka ayaa sii tiro badatay halka gabadhuna aysan awoodin inay dabka iska badbaadiso. sidaa darteed gabadhiina meeshaas ayay iyaduna ku gubatay laakiin waxay nafteeda u hurtay oo ay badbaadisay nafo badan. walaasheedna ma awoodo inay caawiso waayo wiilka iyo aabbaha Son ayaa iyada haya. maalinta xigtay booliska ayaa ka saaraya dhammaan dhismaha godka ku xiran meydad tiro badan ayaana laga helay godka hoostiisa. xitaa waxaa layna tusayaa dad ku xirxiran miiska cuntada oo aad moodid inay cunto sugayaan. filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa Chong oo aadaysa isbitaalka isla markaana waxay arkaysaa faraantii walaasheed oo dhulka ku dhacay waxayna bilaabaysaa inay soo qabato. goobtan waxaa imaanaya Son aabaheed oo laabta gelinaya iyada si uu niyadda markaa ugu dejiyo. iyaduna way ooyeysaa maadaama ay dhimatay walaasheed. filimkiina saas ayuu markaa ku dhammaaday. haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kale fadlan channelka subscribe saaro sidoo kale muuqaalkan like gare si markaa dad badan uu gaaro. waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xig ku kulmayno waxaan ka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.